السلام الله عليكم أصحابتي ذا waxaan fiirinaynaa maantay muuqaalo layaab iyo farxad ba isugu jira oo shantan maalmood ee ugu horeysa ee 2022 hawada soo galay haddii aan ugu cusubtahay subscribe-taada waa dhiirigelin like-taadu waa codsi commentigana fikirkaaga inuu waysaa kusoo dhawaada barnaamijka faahfaahsan waxaa lagu jiraa shantii maalmood ee ugu horeysay sanadka 2022 sidaas darteed muuqaalaha trended noqda hawada soo galay kuwa fani ah kuwa la yaab ah iyo kuwa aad u qurux badan muuqaalada hadda aan hayno waxay matalayaan sanadka wajiga uu yeelan doono waa qiimeynayna fiidiyowga gabagabadiisa meel ba u qaadayna muuqaalo aad u qurux badan oo jecelaystay baa ku jira kuwa fani ah baa ku jira kuwa la yaab leh baa ku jira bal marka hore aan isla fiirino inta muuqaale hadda hawada soo gashay trendedka sanadkan cusub ee 2022 بهوبيسة هودي جلسة عركسي جلسة لوش في قاضيسو وحنا نليد ساكن ما يلا مرة اللي مثل سؤال عن بدنا المل الأمر اللي ده تاوتين كفر عنا فرات عنا يوم waxa hawada soo galay muuqaalkan hadda aad aragtaan xeebta liido waxa soo caariyay xumbadaas oo aan la garanayn waxa ay tahay wiilashan waxay sheegayaan haddii xumbadan aad taabato in jirka uu ku cunayo aska taqaanaa wadanka Soomaaliya dawlad ma laha waxa laga yaabaa waxyaalo kiimika ah in badda gunteeda hoose lagu soo qariyo lagu soo daadiyay kadibna ay xumbadan soo caarisay caafimaadkiina u rooneen baa dhici karta oo dadkan iska dhex taagan yihiin cudur laga qaadi karo ilaahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ku nool yihiin xifdiyo sanadka cusub bisha labadeedii ayaa muuqaalkan la soo duubay oo hawada la soo galiyay dadka haddii aqoon u leeyihiin dadka cilmiga badaha iyo biyaha yaqaan way noo sheegi karaan bal arrinkaas maxay ka turjumaysaa sidoo kale muuqaalada aadka u qurux badan ee soo jiitay waxa kamid ah muuqaalkan aad arkaysaan oo kale waa wiilkii ay dhashay qofta yiraahdo Fartuun Balbalaarka ma sha Allah waxa moodaa Fartuun inay ayada is dhashay suu ugu egyahay wiilkaas face-ka markii waliba intaan uu ka sii weynaado aad buu ugu sii ekaan doonaa ma sha Allah waa muuqaal aad ii qurxiyay aad aan ugu farxay waa ilaahay u barkeeyo horta mar ma sha Allah u dhaha ilmaha kaamirada uma fiicna hayelay bil aadam ku dhici karta laakiin se muuqaalkan wuxuu ahaa muuqaal sanadka cusub qaybtiisa wanaaga ka turjumay aad u qurux badan waayahay next maxaa muuqaalada hawada ku jiro kamid ah aan isla fiirino khasaare badan geystay ayaa maanta ka dhacay suuqa Saybiyaano ee degmada Hodan ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkan faahfaahintiisa inoogu hayo waryaheena Cabdulqaadir Baariyow ما خلدن مسا آمود أصحابي سوق الأم كعليه khasaare badan geystay ayaa maanta ka dhacay suuqa Saybiyaano ee degmada Hodan ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkan faahfaahintiisa inoogu hayo waryaheena Cabdulqaadir Baariyow reer Saybiyaano iyo reer Hodan iyo waliba reer Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan bal saddexdaas iswaafajiya Beledweyne reer Beledweyne saraakiisha Beledweyne ku nool xaafad Saybiyaano la dhaho waxa waa inay ku taalo iyo waliba degmo Hodan la dhaho bal inay ku taalo bal warbixin naga soo siiya waayahay عريضوما يا إسلام هبري يرسل مسؤولية يا مريحاني يا مشتري المانتية والحمصنا والإسلام مسؤولية يدوما يحلرهم ويقول حد أنت قال كيقول كل أنت وأمين ومعجزويك سنة 2022 لو أفلحي أما لو ضافري بكمديين طبعا waxaan dhihi karaa waa dhifiq kulli waa nin hadir kulli aad TikTok ma taqaana live-kiisa barnaamijkiisa aad looga daawado dad fara badan ay ku xeeran yihiin waa comedian dadka qosliya live markaan ku jiray dadka wajigiisa kaliya arkayaan laakiin sida dhabta anikaan behind the scene-kiisa la soo bandhigay marka uu live ku jiro nala hadlay anaga wajigiisa kaliya aragnay muuqaalkiisa oo dhameystir baa la soo bandhigay muuqaal aad iga qosliya aad u qosl badan buu ahaa waayahay next lagugu khasaaray waxba leeyuma khasaarin wallahi alxamdulillah huna walakin sawtaka shabahat sawtaka warmanin baa hadlay misanaag
astaghfirullah alazim. waxyaalo fara badan baa soo socda 2022 cilmi badan baa soo socda qol baan ku xidhan lahaa qolkeedii ku xidhan leedoona markaanoo kale reexa marka waxay dhahaan minaad yaabtid yaasiinka inoo wada qabta waa no comment wala yaab waa sanadka 2022 wajiyada uu leeyahay mid kamid ah waa tartiibkaaga aamus waayahay muuqaalkan wuxuu aad u qasay dhankaasi TikTok-ga waxaad u maleynaysaan hal qof oo laba ciwaan leh oo duwad isku sameeyay likes ma aha si fiican hada u fiirisid ilkaha siiba aad fiirisid waxaad ogaanaysaa labadan gabdhood inay yihiin laba gabdhood oo walaalo ah oo mataan ah laakiinse dharka ay soo xirteen iyo meesha ay ku soo duubeen oo isku eg iyaga isku eg ogeyn wuxuu noqday muuqaal aad dood fara badan uga dhaliyay dhankaasi TikTok-ga oo lagu kala sabtoo leeyahay waa hal qof iyo maaha waa laba qof haddii dooda badatay ayagana xal bay keeneen waa kuwaana ayagoo isla joogo oo isgarab taagan oo muuqaal caadi isla duubayo mataanaha waa ku yirhiin dhanka social media inay isticmaalaan dad dhif ah laga helaa laakiin labadan gabdhood ma sha Allah inay mataanaheena way dhici kartaa kuma degdegayo laakiin sida aan muuqaal ahaan u fahmi karno waa laba qof oo mataana ah oo aad isugu eg waxyaalaha quruxda badan muuqaalada dhanka wajiga quruxda badan ee sanadka 2022 lagu koobsaday buu kamid yahay waayahay next muuqaalka xiga anta ximaar inta kalb قص أمك قصبر سبحان الله أنت ما في احترام أنت ما في احترام ورون يز دقي صاحبك أيو كارلو في النقطة هالشي جيل أنت على دم بغل جرت أفسق لي قص أمك جيري قص بخ عمل على وجهي ذنو أنت ما في احترام labadaan in habeen dhaweyd live ka isku qabteen waa fani buu ahaa ilaa xad xitaa muuqaalo kale oo aad iyo aad fani u ahaa waa jiray dabcan way badnaayeen muuqaalada trended ka noqday ee aadka u qarxay dhankaasi TikTok iyo waliba dhankaasi Facebook lana koobsaday sanadka 2022 wajiyo qurux badan way soo socdaan oo muuqaalo qurux badan saad arkayseen baa soo socdo muuqaalo fani ana waa soo socdaan muuqaalo mucjisadooda watana waa soo socdaan laakiin si sanadka cusub wajigiisa waxa dhihi karnaa waji qurux badan baa ku qiyaasaynaa shar ilaahay baa laga magan galaa wixii shar ilaahay naga hayo dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Liidana waxaan leeyahay war hadiidan garanayn waxaas inta bal war laga soo saaray dadka waxaas cilmiga u leh inta ay ka soo sheegayaan inay suntayna way dhici kartaa bal taxadar laga qaato haddii wax normal ay tahay reer xeebeedka ay si fiican u yaqaanaan oo waxaan la arki jirina oo okay markaas xeebta lagu dabaasho laakiin inta waxaan ay jiraan xeebta yaan la gelin cudurro inaa ka qaadaan baa laga yaabaa waa tahay barnaamijkii maanta aan ku soo koobayay dhacdooyinka la koobsaday sanadka 2022 shantii maalmood ee ugu horeysay intaas aan ku soo gabagabeynayaa haddii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi comment-iga fikirkaaga ruugaasa intaan ku kulmi doono barnaamij kala mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliya shalmay idin leh ciao ciao